gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane oo wareysi siiyay TV-ga caalamiga ee Som News ayaa wuxuu ka warbixiyay hawlaha shaqo ee uu ka qabtay muddada gaaban ee uu xilka gudoomiyenimada hayay wuxuuna xusay in shaqaalaha dawladda hoose oo aan helin mushaharkooda 3 bilood ay wax ka qabteen cabashadooda la xiriirta dhanka mushaharka maadaama lagu jiro waqtigii ciidaha waxaana kamid ah hadaladiisii kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaan ku sugannahay xarunta gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaan ku sugannahay xarunta gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama waxaad ku soo dhawaataan wareysi aanu la yeelan doono gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama isagoo aan ku sugannahay xaruntiisa Maxamed Xuseen Maydhane gudoomiye ku soo dhawow wareysigii ugu horeeyay ee uu kula yeeshay television kamida telefishinada ku hadla afka Soomaaliga oo ah telefishinkan Somali News ama Som News ugu horeyn waxaan kugu soo dhaweynaynaa wareysigaasi mudane gudoomiye bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam waan ku soo dhawahay idinkuna waad mudantihiin xog wareysigaada igu timaadeen mudane gudoomiye su'aasha ugu horeysay aan ku weydiinna waxay tahay dhawaan waxa lagu doortay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama oo ay ku doorteen xubnaha golaha deegaanka ee degmadaasi sidoo u aragtaa xilka lagu doortay ee gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama بسم الله حلك هرت وح لا يرهذا بمسؤولية وح لقولنا فرحة معها وحول علص كليتها دي معها وح لقو فرح مركز مسؤولية دانا إنه إلهي نقو أسطرو نونا فضودية أنا بويدي سنين mudane gudoomiye muddada gaabanada xilka haysay ma jirtaa talaabooyin aad qaaday oo aad ku dirdirgelinaysaa hawlaha shaqo ee degmada Boorama ama se dawladda hoose ee degmada Boorama ma jirtaa way jirtaa waxa ah shaqaalaha oo muddo bishii afraad mishaar leh si shaqadii u dhaqaaqdo in mishaarkoogii meel maran maadaama aan nimidnay aan u raadino oo amaah tagno dawladda dhexe baanka dhexe aan amaah weydiisano aan 6 bilood soo socota bilba wax iska bixino baankuna uu naga kaalmeeyay oo kaalmo dhaqaale ayuu nasiiyay aad baan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha baanka dhexe iyo agaasimayaashiisa taasoo muddo 3 bilood mishaarkoodii aanu sii qaadnay taasoo shaqada ku dardargelinayno anan ay ku ciidi doonaan ciid wanaagsan shaqaaluhu hadduu Ilaahay yiraahdo anan ka rajaynayno marka ka bacdigeedna inay shaqadii dardargeliyaan talaabada kuwada waan qaadnay waana laf dhabartaayay u tahay shaqada dee qof isagii wixii ku shaqaynayay anan hayn shaqay ma odhan kartid marka talaabadan abaarnay waa taa sidaan shaqaalahay wax ugu heli lahay maxaa ku qorshaysan kamaayar ahaan inaad ka qabato degmada Boorama muddada aad xilka hayso ee aad leedahay hal lagu xasuusto oo dadweynaha degmada Boorama ama se guud ahaanba Soomaaliland hal lagaaga xasuusto muddada aad xilka hayso maxaa leedahay waad qabanaysaa بسم الله waxa horta naloo soo doortay waxay ahayd degmada horumarkeega iyo nabadgelyadeeda waxaan diyaar u nahay inaan nabadgelyadeena ka shaqeyno intii tamarteeda ah 2 inaan horumarkeega ka shaqeyno hadba intii karaanka degmadu iyo dhaqaalaheega uu yahay
mudane guddoomiye suu noqon doonaa wada shaqaynta adiga iyo golahaaga deegaanku maadaama lagu yaqaanay inta badan in ay murmaan ama se ay maaragtay khilaaf u dhex yimaado xubnaha golaha deegaanka iyo guddoomiyahooga dhaliilihii guddoomiyaha hore aad u jeedin jirteense maxaad ka bedeli doontaa ama se maxaad ka qaban doontaa bismillaah waxa weeye aniga iyo golaha ay doortay wada shaqayntoodu waxay noqon doontaa mid wanaagsan oon ku wada shaqayno sharciga iyo walaaltinimo annagoo u todhayna degmadayadii waxaana islaahay intii hore naga lumay inaan inta dambe ka kabno annagoo oo iskaashanayna wada tashanayna ugu weyn in hor ku shaqayn doonaana waxa weynaan soo celino kala fadhiyadii sidii joogtada ah waxaan noqon lahaayeen muddada sharcigu dhigayo talada degmada wixii kala fadhiyada ku go'aamiyaana la fulin doono qalba intii dhaqaalaha degmada uu yahay mudane guddoomiye waxaan ka warqabnaa markii aad xilka la wareegaysay guddoomiyenimada golaha deegaanka inaad la wareegtay deyn fara badan oo qiyaas ahaan lagu qiyaasay markaa ilaa $300,000 sidaas leedahay waad u bixin doontaa deymahaasi gaadhaya $300,000 ee ay galeen maamulkii ama se guddoonkii hore idinka horreeyey adiga guddoomiye ku-xigeenka taasoo dadka deymaha lihi ay aad u fara badan yihiin maxaa idinka qorshaysan qaabka aad u bixinaysaan deymaha aad waqtigaa la wareegteen bismillaah waxa weeyaan deynta horta anagu wax deyna oo toos la wareegnay ma jirto isla maalintii halkii waxaan ka ballan qaadnay wixii sharcigu ogol yahay inaan qaadi doono waxaan sharcigu ogolayna inaan qaadin bartii aan taagnayna xil wareejinta ayaan ka cadaynay haddii aad inaad ka maqnayd mooyaan mudane guddoomiye bilicda magaalada iyo jidadka xidhan ee xaafadaha qaarkood maxaas leedahay ka qabo ama se kaaga qorshaysan inaad ka qabato bilicda magaaladu kulleyta farkilaati fulmaq dhaqdo degmadu waa waxa wadaan leenahay haddii saxaafad tahay iyo haddii dadweyne tahay inay iyagu laftoodu naga kaalmeeyaan ayaan wax ku hagaajin karnaa marka waxaan rabnaa inaan ummadayada wada tashi iyo waxaan wadaniyad iyo inaan degmada wada leenahay aan wax ku hagaajino mudane guddoomiye waxaa jirtay mashaariic ka socotay degmada Boorama sida kuwa GBLG-ga ee wada shaqaynteeda ka dhaxaysa hay'adaha caalamiga mashaariicda kuwii sanadkan la fuliyay sid u fulin doontaan dhameystirkooga kuwa hadda se la bilaabayo maxaa qaabka aad u bilaabi doontaan muxuu yahay bismillaah horta mashaariicdaasi hay'adaha iyo waxa iska kaashada dawladda dhexe iyo dawladda hoose qolo walba rool bay leedahay iyo dhaqaaleynta ay ku daraysaa uu cad yahay inkastoo muddadan dambe anaga dhaqaale ahaan 5% kiiba la bixin kari lahaa oo mashaariic badan inoogu joogtay waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo iminka 2 mashruuc 2 kiiloomitir oo kiiloomitir halka airportka wadada tagtaa iyo kiiloomitir galda road labadaaba iminka mashaariicda aan bilaabayno waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo inaan wixii anaga naga soo hagaagayay say hawsha u dhaqaaqdo anaga bilow aan wixii markaa aan bilowno waan bilaynaa haddii ilaahay yiraahdo muddada soo socota sida ugu dhaqso badan markaa guddoomiye mas'uuliyadda xiriirkii idinka dhaxaynayay hay'adaha caalamiga ee deeqda bixiya iyo dawladda hoose oo inta badan muddooyinkan dambe xiriirkiina uu yar xumaa ma garanaysaa xagga wada shaqaynta adu maadaama guddoomiye cusub aad tahay in aad shuruudihii iyo waxyaabihii ay idinka baahnaayeen aad fulin doontaan oo aad dhammaystiri doontaan si mashaariicda ay wax idinkala qabanayaan ay u hirgalaan bismillaah waan qabanaynaa wixii shuruud annaga nagu xidhan wixii dib u dhac ku yimid sidii maamuldaajintii waxbarashada oo qabiyo noqotay oo fuli weydayna waxaan ka dhigan doonaa waxa ugu horeeya ee aan dhaqaajinayn haddii ilaahay yiraahdo
mudana guddoomiye dhanka nadaafadda magaalada Boorama waxaa jiray in maamulkii ka horreeyay uu ku wareejiyay shirkad gaar loo leeyahay oo magaceeda la yiraahdo Horseed waxaana jira cabashooyin dhinaca nadaafadda oo inta badan dadka ama magaalada soo noqnoqda meelaha nadaafad darrada lagaga cawdo waxaa kamid ah kawaanka magaalada Boorama ee xoolaha lagu gowraco taasoo inta badan nadaafad darrada ka timaanta ay keeni karto sababo caafimaad oo xanuun lagu qaado taa maxaad ka qaban doontaan iyo dhanka xaafadaha magaalada Boorama oo inta badan qaarkood ay ka cawdaan in aan shirkadaasi iyo dawladda hoose midnaanay khashinka ka gurin bismillaah horta waxaan sharci ku dhismayba kulleyta ama midmadow marka hore wax lagu hagaajiyay dhibteedu leeyahay waxa ay maxkamaddu ka qeyleysa kamid tahay shirkadaas anuu ka gula deegaan ahaan golaha lama soo hordhigin sharciyadeeda markii horeba fulinta gobolka iyo degmada un baa wareejisay imikii haatana haddii hawshii hortay la wareejiyay in hawshii sidii loogu talagalay ay u qabanayaan iyo kale ayaan xaq ugu leenahay haddii uu qaban waayana wixii tallaabo sharci waafaqsan uma ka qaadi doonaa haddii qabtaana waan ku taageeri doonaa mudana guddoomiye waqtigii yacni aad imanaysay guddoomiyenimada ama se maayarnimada magaalada Boorama waxay dad badan yiraahdaan olole weyn bay u gashay dawladda dhexe oo ku wadatay maadaama aad ka hortimid siyaasadda Suldaan Wabar oo aad shirar lagu qabtay qoljeed iyo aad kamid ahayd xubno aad u firfircoon oo ka muuqday hormoodna aad ka ahayd ma dhaba arrintaas ammaanka maxaad ka qaban doontaa degmada Boorama guud ahaan dhinaca nabadgelyada iyo ammaankeega bismillaah horta adigu waxaad la socotaa wariye golaha deegaankiisa hawshiisu iyo hawsha Suldaan Wabar wayba kala horeeyeen oo degmadan annaga oo isaysanaba hawsha kalena bilaabantay tii unba markaas xoogaysatay laakiin golaha deegaanku kolka horeba wuxuu isku hayay wax qabadkii degmada ee loo eegmaday oo dhaqaaqi la ah oo fulintayadu dhaqaajin weeday baa waxaan isku haysanay nabadgelyaduna de number 1 bay ka tahay in laga shaqeeyo meel ay nabadgelyo ka jirin wax horumar imanayo hay'adaha nabadgelyada ee degmadana كل المسؤولية دي كان نبتقليدي دقمة قدوميها دقمة وحاوجه الريان كلا خوض الشقين هنا ونبض السديلو إلى لها نبض لعنا ونولا لعن مدن قدومية سواء شو قدوم بيسين كويدين نوحي كمتها قدوميها قبل كعوض الواحد كده حرير وناكسنا ووضع الشقينا bal waxaad nooga warantaa muddada uu gobolka joogay adiguna aad kamid ahayd xubnaha golaha deegaanka iyo hadda ood xilka ka qabatay sida shaqadiisu ay tahay iyo wada shaqayntiinu sida ay tahay iyo yacni mustaqbal ahaan waxaa idin qorshaysan inaad ka qabataan guud ahaan degmada Boorama iyo xiriirka idinka dhexeeya sida uu yahay oo dad badan ay isweydiinayaan inay leeyihiin waa rag aad isugu dhow bismillaah horta maamulka degmada iyo ka gobolku inay wada shaqeeyaan waa waajib sharcigan dhigaya wana wasaarad kale xatay isku yihiin waxana keenaysa shaqada iyo sharciga dhigaya mid waajiba in la wada shaqeeyo oo wadanka iyo talada degmada iyo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda laga wada shaqeeyo laakiin taa baana ay tahay inaan xoojino markii hore wada shaqeyn waliba toos inagama dhaxayn ee fulintayada ka dhaxaysay laakiin maanta ayaa anagu wada shaqeynta tooski aynu loo bilaabantay haddii ilaahay yidhaahdo wax weyn inaan wada qabsanno oon degmada u qabanaan rajaynayna haddii ilaahay yidhaahdo mudana guddoomiye adigoo ka faa'iideysanaya fursadan maanta waraysiga aanu kala yeelanayno haddaanu nahay bahda Som News shacbiga Boorama ee ku daawan doona maxaad u sheegi doontaa maxaad safariin u gudbin doontaa in yacni ay hawlaha idin hor yaalla ka dawladda hoose ahaan ay wax idin kala qabtaan dhinaca cashuuraha dhinaca maamulka waxyaabaha yacni fursadan uga faa'iideysan doonto eed rabto inaad fariin ugu gudbiso shacbiga magaalada Boorama maxay tahay eed noo sheegi kartaa
بسم الله waxaan leeyahay dadweynaha ku dhaqan degmada Buurama ee Duqaawahay degmadu waa degmadiinii annaguna meel kale kama nimadeennu ma nahay inaad nala shaqaysaan oo naga caawisaan hadday aqoon tahay iyo hadday wax qabad gacmeed tahay iyo hadday tala tahay in wixii naga khaldan aad nagu toosisaan oo isla kaaya garab taagtaan oo degmada wadaniyadeedii waan u wada dhalanay qofku meesha haduuna ka tageen meesha u dhashayna inuu wax ka qabtaa waajiba inuu xagga wanaagsan wax ka eegaa wanaagsan si kastaba ahaatee gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama ayaa xilka gudoomiyenimo kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha deegaanka ee degmada Buurama bishan Juulaay 4teedii wuxuuna noqonayaa gudoomiyihii labaad ee qabta xilka gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Hashim Sheekh Umar Good Som News TV Buurama